Bismillahirrahmanirrahiim. Daawada kusoo dhawaada channelka Sooyaalka Hawada oo aan maanta inayna barnaamij la yaab leh oo ka dhaca wadanka Tansaaniya. Madaxweyne ku taliyay in lugaha la isku salaamo cudurka coronavirus awgiisa oo ka dhacday wadanka Tansaaniya. Barnaamijka maanta waxaa inoo soo jeedinaya aniga oo Muslim si daawasho wacan. Madaxweynaha Tansaaniya John Magufuli oo door biday in lugta uu ku salaamo siyaasi ka tirsan mucaaradka cabsi laga qabo coronavirus dartiisa. aqalka madaxtooyada Tansaaniya ayaa baahiyay sawir muujinaya madaxweyne John Magufuli oo lugta ku salaamaya siyaasi ka tirsan mucaaradka oo lagu magacaabo Macalin Seif Sharif Axmed. Madaxweynaha waxa uu door biday inuu lugta ku salaamo dadka si loo dhaqan galiyo tallaabooyinka ay shacabka ka qaaday wasaaradda caafimaadka dalkaasi ee looga hortagayo caabuqa corona. Caabuqa corona waxa uu saameyn ku reebay dalal badan, waxa uuna kasoo bilowday Shiinaha oo uu ku dilay in ka badan 300,000 oo qof. dowladaha caalamka ayaa heegan ugu jira sidii looga hortagi lahaa corona. qaaradda Afrika, dalalka kale ah Masar, Morocco, Tunisia, Nigeria iyo Senegal ayaa shaaca ka qaaday kiiska ugu horeeyay ee caabuqa corona. Paadariga ugu sarreeya kaniisadda Katolika Pope Francis ayaa lagu waayay cudurka corona kadib markii baaritaan caafimaad lagu sameeyay sida ay kusoo waramayeen warbaahinta Talyaaniga. Paadariga oo 83 jir ah waxa uu fadhigiisu yahay dalka Talyaaniga. Pope Francis ayaa toddobaadkii la soo dhaafay iska fogeeyay inuu la kulmo dadweynaha maadaama uu dareemayo qabow. Talyaaniga ayaa waxaa si daran u saameeyay caabuqa corona, in ka badan 2,000 oo qof oo ku nool dalkaasi ayuu ku dhacay caabuqa halka 52 qof oo kalena geeriyoodeen. wasaaradda caafimaadka Sacuudiga ayaa shaaca ka qaaday in gudaha dalkaasi lagu arkay qofkii ugu horeeyay ee ku dhacay caabuqa corona. Saraakiisha waxa ay sheegeen in qofkii uu ku dhacay corona uu yahay muwaadin u dhashay Sacuudiga oo ka yimid dhinaca Iiraan. Dalka Tunisia waxaa lagu arkay qofkii ugu horeeyay ee qaba cudurka, kaas oo muwaadin u dhashay Tunisia oo ka yimid dhinaca Talyaaniga. dhanka kale, wasaaradda caafimaadka Urdun waxa ay shaaca ka qaaday kiiskii ugu horeeyay cudurka corona kadib markii laga helay qof u dhashay dalkaas oo kasoo safray Talyaaniga. daawadayaal, intaas ayaa nooga eg barnaamijkeena maanta oo aan kusoo qaadanay cudurka coronavirus oo aan la socodsiinayay aniga oo Muslim Nasiib. Tan iyo intaan kulanka xiga aan kulmi doono waxaan kaga tegayaa sidaas iyo amaan Allah.